بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحديثكي كوبية طبناد حديث أن تلقلنا بشهر رمضان أن إلهي نقدر كو كفا يستوكو رغمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. رواه البخاري. xadiidkan nabigu calayhi salaatu wasalaam fawaa'id fara badan oo aada u fara badan ayuu noogu sheegayaa oo ay muhiim tahay in aan ilaashano. wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam, soonku waa gaashaan. wuxuu gaashaan ka yahay naartii ayuu soonkaaga haddii ilaahay kaa aqbalo uu gaashaan kaaga noqonayaa. wuxuu gaashaan kaaga noqonayaa iyo difaac dunuubtii iyo macaasidii ayuu kaa ilaalinayaa. sidaa darteed, maadaama soonkii uu gaashaan yahay, mar haddii aad soontid adigu waa inaadan gaashaankaas iska daciifin, waa inaadan gaashaankaas iska jebin, waa inaadan gaashaankaas daldalool iskaga yeelin. adigu ha xadgudbin oo ha ka bixin dhowritaankaas iyo meeshaas dhufayska adagood haysatida soonka ah. nabigu wuxuu leeyahay falaa yarfuth walaa yajhal. qofku haddii uu sooman yahay marka yuusan hadal xun oo rafath aan la iman, ama yuusan xaaskiisa u tegin oo jimaacin, yuusan jahli samayn oo maaragtay hadallo oo xadguduba iyo edab darro iyo warkii xumaha iska ilaaliyo. haddii qof uu la dagaalamo ama qof uu caayo muxuu sameynayaa? nabigeenana bare calayhi salaatu wasalaam, haddii qof uu kula dagaalamo ama uu ku caayo, iyadoo mar kastaba sidaan ay muhiim tahay oo aada inaada dagaalamin oo aada caytamin ee dhaafitaanka iyo cafwiga uu muhiim yahay iyo dulqaadku, haddana markii aad sooman tahay nabigeena wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qofkii ha yiraahdo innii saa'im 2 jeer ha yiraahdo, waxaana lagaa doonayaa markaas aada leedahay waa soomanahay, inaysan istustus iyo maqashin iyo sheegid aysa kaa noqon, ee ay tahay ilaahay dartiis inay kaa tahay, ood rabtid qofkan inuu kaaga leexdo oo uu dagaalka kaa daayo, cayda uu kaa daayo, uusan dhibkan ku sii gelin. taas waa inaad uga jeedaa ee aadan uga jeedin soon inaad sooman tahay ha la ogaado. maxaa yeele haddii aad taas samaydid ee inaad sooman tahay ha la ogaado ujeedkaagu u noqdo, soonkaagu ilaahay dartiistii ayuu ka baxayaa, gaashaankii kuuma noqonayo, ilaahayna ciddii wax la wadaajiso cibaadadeeda istustus gelisa kama aqbalo. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu dhaarto, wuxuu yidhi waxaan ku dhaaranayaa allaha naftaydu yaddiisa ku jirtee, qofka sooman afkiisa xayayaabada saaran ama karka ka imaanaya oo waxyaalaha qofkii ilaa haddii uu gaajoodo oo uusan maantao dhan waxba cunin waa isbedelaya afkiisa. afku aamuska dheer waa la doorsamaa, cuntada waa la doorsama badan, maaragtay hurdadiiu la doorsoomaa. marka qofka afkiisa isbedelka ku dhacay, qofka sooman ee urka iyo qurunka noqo lahaa, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa agtiisa ka udgoon miskiga caraftiisa ka udgoon. marka maadaama aada arrintaas haysatid ha iska burin. xadiidka qeybtan ah, qofka sooman afkiisa karka iyo xayaabada saaran ayaa ka udgoon miskiga caraftiisa. a-imada qeyb ka mida sida imaamu shaafici oo kale waxay ka qaateen inaysan sunno ahayna karaahiye ay tahay duhurkii kabacdi in la cadaysado qofka sooman. maxaa yeele wuxuu leeyahay waxyaalahaas karkaasuu qofku iska baabi-inayaa. haddii iska baabi-iyana hadda odeygaas oo jannadii carafteedii ma helayo.
macnaha xaaraanna ma uu qabee waa karaahiyu leeyahay isagoo fiirinaya in qofku ajarkaas badan uu ilaashado iyo karkaas uu ilaahay agtiisa maqaam ka leh. laakiin a-imo kalena waxay qabaan inay sunno tahay cadayga markastoo afku isu bedelo, xataa madhabka shaaficiyada dhexdiis qayb ka mid a. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waa xadiidu lqudsi. qeybtan dambe hadda sheegayno ilaahay wuxuu leeyahay yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli. ilaahay wuxuu leeyahay qofkaani cuntadii ayuu ka tegay, cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisii wixii uu naftiisu ay danaynaysay oo uu jeclaay oo dhan iyo xaaskiisii wixii oo dhan ka tegay aniga dartayuna uga tegay. wixii oo naftiisu danaynaysay oo shahwadii oo dhan aniga dartay uga tag. assiyaamu lii uu ilaahay marka leeyahay, soonka aniga iska leh. maadaama qofkaasi soonkiisu uu sir yahay oo uu aniga dartay waxaa iskaga daaya. ilaa qofku haddii uu doono inta meel isku xiruu wax cuni karaa, wax cabi karaa, wuxuu rabana samay karaa. laakiin yaa og ilaahay subxaanahu wa tacaala. cid kale uga baqay ma jirto, cid kale waxaasoo dhan uga tagay ma jirto. maadaama marka cabsideyda uu intaas uga tegay, soonka aniga iska leh, anigaa u xisaabaya, aniga ajarkiisa og, malaa'ig xataa uma dirayuu ilaahay leeyahay wa ana ajzi bihi, aniga ayaana ku abaal marinaya soonka. waalxasanatu bicashri amhaaliha. xasanaadka kale ee qofku uu sameeyaahay waa loo 10 jibaarayaa. 10 jibaar yacni halkii xasanaba 10 loogu dhifanayaa. laakiin soonku saas maaha, waa kasii weye. oo xadiidka kala cadaynayo asna abi hureyre warinayuu leeyahay kullu camali bni aadama yudaacaf alxasanatu 10 amhaaliha ilaa 700 ضicf. camalka bini aadamkao dhan waa la laalaabaa, yani waa loo jibaaraa. xasanadii 10 jeer ayaa loo laabaa ilaa 700 jeer ay gaarto. laakiin ilaahay wuxuu leeyahay ila sawm, soonka ma ahan. fa inahu lii wa ana ajzi bihi. soonka aniga iskale, aniga arrintiisa og, anigaana ku abaalmarinaya. 700 ma aha, waa kasii badanya, ilaahay kaliya og. maxaa yeele qofkani yadacu shahwatahu wa طacaamahu min ajli. aniga dartay uga tagay shahwadiisa iyo dacaamkiisiiy iyo cuntadiisii waxaa dhan. oo salaadii qofka waa la arkayaa, hadduusa tukan waa la ogaanayaa, zakadii hadduusa bixin waa la ogaanayaa, xajkii hadduusa aadin waa la ogaanayaa, cibaadaadkii kale waa la ogaanayaa. laakiin soonka cidina ma ogaa karto. qofka gurigiisa saaka kasoo quraacday iyo qofka aan kasoo quraacan labadaba ilaahay ayaa kala yaqaan jala jalaaluhu. marka maadaama waxaasoo dhan asagoo sir u samay karay ilaahay dartiis uga tegay, abaal markaan weyn uu leeyahay. hadduu sir u sameeyana oo wixii oo uu ilaahay amray inuu ka tago hoos u sameeyana, cadaabkiisu waa badan yahay, khayrkaas faraha badanna wuu weynaya. wuxuu sii daba dhigay lisaa'imi farxatan. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay lisaa'imi farxatan. qofka soomani 2 jeer ayuu farxaa. farxatun cinda fitrih wa farxatun cinda liqaa'i rabbih. qofka soomani 2 jeeruu farxayaahoo farxadi waxa weeye markii uu afuro oo wuxuu ku farxayaa maantay shaqadii uu soo qabtay, waajibkii laga rabay inuu soo gutay. ilaa qof haddii la yidhaahdo shaqee, maalinkaa markaa shaqaydina intaasoo joornaata ama mushaarahaad leedahay, markuu shaqadii dhammeeyo wuu farxayaa, maxaa yeele mushaarkiisuu helayaa. laakiin haddii uusan shaqayn ka waran, maalinkaas mushaarkiisii ma leh. marka qofka muuminka markuu farxo afuro wuu farxayaahoo inuu maantay soonkiisii soo gutay, ilaahay subxaanahu wa tacaalana ajarkiisii uu rajaynayo oo ilaahay inuu ka aqbalo uu rajaynayo ayuu ku farxayaa, oo uu mushaarkii iyo ajarkii uu sugayo. hadda farxadda kalena markuu rabbigiis la kulmo jala jalaaluhu oo markaasuu farxayaahoo
hadda ilaahay baa markaas ka abaalmarinaya. dayn laguma leh markaas uu tago, dayn laguma leh. laakiin qofkii aan soomin markaas wuu naxayaa, wuxuu ka naxayaa daynta lagu leeyahay, waa loo cadaabayaa. marka aan ku dadaalno in aan farxaddaas gaarno, aan ku dadaalno soonkeena inaan ilaashano, gaashaankaas inaan ilaashano, ajarkaas faraha badan inaan ilaashano. shahawaadkii maadaama naloo xalaaleeyo marka hore xalaasha noo aha aan ka tagnay, waxa xaaraamta ayaana iskaga burin. intaas ayaan xadiidkeena kusoo koobayaa. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.